oo lacagta ay ku bilaabato meeshan hadda everywhere sa ujeedin واتهاي أصحابتا مركلة اسكو سو نقطة نكسر ما أنت برامج كده حكوا سبسين هاي لو برامج وقت مهمة مثل كود حقوية هاي مبو حسي شروطي كون سبسكرايب أفر كون أو ساعدود طبعا وحدو بهانتهاي إن أدسك ديوان قصو قيبت حياسين تسيلو كنقصو فرو كاسي أولو يقانو جوجل أدسنسيغا مثل لبعض حقوية هاي هدي أد جوجل أدسنس اسك ديوان قلسيد وحد بهانتهاي أو كالاتو إن لغو صدرو فيريفيكيشن كودكا أما أفرت نمبر إي حقيجنتا si lagu soo diro waxaad u baahan tahay in aad Google AdSense-gaaga aad ku xiratid address-ka gurigaaga haddii aad joogtid wadamada laga ogol yahay in ay ku xirtaan YouTube-kooda ama Google AdSense-gooda address-kooda haddii aad joogtid dabcan waxa laga yaabaa dad walaalahaaga asxaabtaada ah oo ku nool dunida daafeeda kuwaasi oo aad ka codsan kartid in ay address-kooda ku siiyaan si lagugu soo diro afarta number ee verification-ka maanta barnaamijkeena labadaas barnaamij ayaa ugu muhiim ah intaas ayaana gudagali doonaa haddii aad si fiican ama si oo step aad u daawato waxaa hubaal ah in aadan u baahan doonin caawinaad dambe laga yaabaa asxaabta kale ama dadka kale youtuberka ee soo kacayo in aad adigaba aad caawisid maanta barnaamijkeena intaas ayuu ku saabsan yahay war badan ma gali doono practical fara badan ayaan samayn doonaa ila soco ilaa iyo dhamaadka watahay akhyaarta sidaad hordhaca barnaamijkan kusoo aragteenba waxaan gudagali doonaa barnaamijkeeni haddii aad rabtid in aad samaysatid Google AdSense waxaad isticmaashaa Chrome ama browserka loo magacaabo Chrome ama waxaad isticmaali kartaa Safari ama Opera ama Firefox iyo wixii la halmaala intaas web browser mid karta ayaad isticmaali kartaa haddii aad isticmaashid telefoon aad isticmaalisidna waxaad soo kicisaa web browserka ah Google Chrome kadibna waxaad tagtaa saddexdan dhibcood ee kor ku taalo kadibna kor ayaad u jiidaysaa kadibna waxaad ka xulanaysaa meesha ay ku qoran tahay desktop site kaas ayaad jeega saaraysaa kadibna wuxuu noqon doonaa sidii computerka camal inaad isticmaalisid kadibna teleefankaaga sidoo kugu weynaado kor ayaad kasoo jiidi doontaa kadibna waxaad u fasaxi doontaa teleefankaaga inaad u isticmaashid jiif okay kadibna ku page-kan soo baxo ama page kale ku soo baxo nooc rabo qaybtan koreeto ayaa waxaad ku qori doontaa waxa lagu magacaabo Google kadib Google ayaa ku soo baxay saamaashan ugu jid geeskan waxa ka soo bixi doono sawirkaaga ama mataqaana account-kaaga mataqaana waxyaabaha oo aduu sawirku saarneen xarafka uu ka bilowdo magacaaga haduu ani cabay ayuu ka bilowdo kalato C ayaa ku soo qormayso meeshan oo sawirka bedelkiisa sababtoo ah xarafka ugu horeeya ayuu soo qabanaya okay marka meeshan aan taaganahay waxaan u baahanahay in aan iska register gareyno Google AdSense-ga ama xayeysiinta qaybteeda kadib meeshan ayaa waxaan ku qorayaa sirjiga AdSense kadibna qaybta ugu koreyso iyo soo qabtay hore ayaan u raadiyay kadibna waa kaasa markay meeshan isaan ay tahay waxa ku dhufanaysaa meeshan in ku qoran tahay AdSense Google AdSense meesha qaybta ugu horeyso linkigaana asiina waxaan soo dhigi doonaa qaybta hoose ee description-ka qofkii oo mataqaana oo meesha u soo bixi waayay toos qaybta hoose ee description-ka ha tago kadibna ha ku soo dhufsado toos ay u keen doonaa kadib meeshan ayaan ku dhufanayaa okay aniga ciwaankan hadda aan ku isticmaalayo waa ciwaan oo aan u isticmaalo si caadi ahaan ayaan u isticmaalaa YouTube amal ahaan uma isticmaalo laakiin wax walba barooba ah iyo wax walba aan iskaga isticmaalaa oo ciwaan caadi aan leeyahay waaye marka su'aal ayaa meeshan ku jirta intaan guda galin ka hor page ka hore waa kana haddii aad hore u leeyahay Google AdSense-ga sign in ayaa leedahay haddii aad mataqaanaa qof xayeysiinta marka kugu horeysa aad dalbanaysa ay tahayna meeshan blog oo get start ayaa ku dhufan kartaa hadartina qaybtan ayaa ku dhufan kartaa laakiin su'aasha ugu muhiimsan waxay tahay anigoo kunka subscribe gaarin iyo mataqaana 4,000 oo saacadood ma dalban karaa taasi waxaan ku leeyahay maya laakiin 2019 iyo wixii ka horeeyay qof walba uu dalban karay ama uu dalban jiray hadda anigu ciwaankan aan ku isticmaalaya ama maanta aan idinku tusi doono waxaan furay hadda 1,000 subscribe muusan gaarin 4,000 saacadoodna lama daawanin oo videoyaal caadi oo waxaan ku samaystaa oo aniga oo baroob ahaan iyo waxyaabaha iska soo samaystaa oo mid ani iyo khaas ah waay okay marka qofka haduu u baahan yahay marka in uu mataqaana is-register gareeyo waxaad ku dhufanaysaa get startigan ama midtan aad ku dhufanaysaa kadib marka ku dhufto click ayaan ku siinayaa page-kan oo ayaa ku soo bixi doona page-kan marka ku soo baxa kadib meesha waxaa lagu weydiinayaa URL-ka mataqaana your page-ka ama your site-ka ayaa lagu weydiinayaa okay dadka waxay u maleeyaan marka video linkigiisa ay soo koobiyaan inta ay ku dhuftaan laakiin sidaas ma ahan waa ay ka weyntaa sheekada meeshan ayaan ku dhufanayaa kadibna waxaan soo kicin doonaa YouTube cusub ayaan mataqaana YouTube ayaa soo furaya
okay youtube-ka isla youtube kaliyan ku jira oo saa ujeedin mataqaanaa inta waxaa yaalo maxaa la ishig sawirkayga ayaa geeskan ka saaran aad ka arki kartaa oo qaybta oo midigta ee kore sawirkayga ayaa ka arki kartaa kadib sawirkaas ayaa ku dhufanaya kadibna your journal ayaa kusii dhufanaya kadib saa ujeedin waxyaabo mataqaanaa ani aan leeyahay iyo videoyaal ayaa mataqaanaa aan soo geliyaa laakiin mid oo mataqaanaa ma ahan oo public waxaan isticmaali jiray 2011 iyo mataqaanaa 2012 ayaan isticmaali jiray youtube ahaan ayaa u isticmaali jiray waxyaabo ayaa soo geli jiray qofkii soo booqda ayaa arki karo laakiin waa ka guuray mar hore okay meeshan sharaxaadaas kale waxaa ila galay inaa sharxo waxa uu yahay mataqaanaa youtube-kan okay meeshan marka aan rabnaa marka muhiimadeena inaan buuxino meeshan waxaa ku buuxin kartaa waxaa soo galaysaa youtube-kaaga kadibna waxaa ku dhufanaysaa sawirkaaga kadibna waxaad ku dhufanaysaa your journal kadibna page-kan ayaa ku imaanaya kadibna linkigan koreeto ayaad waxaa leedahay right click kadibna copy ayaa soo leedahay qaybtaas koreeto kadib inta ayaa imaanaysaa kadibna waxaad leedahay control v okay meeshaas way kaa dhamaatay your site-ka qaybtaas ayaa la geliyaa oo ah meeshaan ayaa tagaysaa linkiga home page-ka adoo joogtid oo meel kale aadan u gudbin inta joogo ayaad waxaa soo qaadanaysaa maxaa la URL-kaas ama mataqaanaa linkigaas kadibna intaad baasi ku leedahay intan waxaad gelinaysaa janaalkaaga aad isticmaalaysid ee ku gaaray 1000 subscribe iyo 4000 saacadood ciwaanka oo gmail-ka aad ku isticmaashid ayaad halkan gelinaysaa aniga hadda ciwaano badan ayaan isticmaalaa laakiin ciwaanka mataqaanaa kullu samaysan yihiin laakiin markii aad ku dhufatid oo inta ciwaankaaga aad gelisid kadibna yes ayaad ka dooranaysaa kadibna waxaad ku dhufanaysaa continue ayaad leedahay oo mataqaanaa save and continue kadib ciwaankaaga saas ayuu ugu samaysan yahay maxaa la lahay isheeg Google AdSense saas ayuu kugu samaysan yahay okay page-kan markii save and continue markii aan dhaho kadib meesha uu ku geynayo waxay noqonaysaa sida tan oo ah haddaan dhaho sign in ayaan leeyahay kadibna wuxuu soo qabanayaa ciwaankan AdSense-ga igu samaysan fiiri waa kana marka aad samaysid oo mataqaanaa save and continue markaa soo dhahdid page-kan ayuu ku keenayaa page-kan soo ujeedid mataqaanaa lacag meeshan CHF-ta waa lacagta oo mataqaanaa Swiss franc macnaha CH waxa laga soo gaabiyey waa mataqaanaa Swiss-ka ee mataqaanaa laga soo gaabiyey marka Swiss franc laga soo gaabiyey okay eber ayaa ku qoran soo jeedin intan eber waa inta eber waa okay muhiimadda labaad aan leenahay maanta waxay ahayd marka qaabkee ugu xiri karaa address gurigayga si loogu soo diro verification code-ka si aan mataqaanaa oo Google-ka iyo aqoonsado in aan ahay qof sax ah oo mataqaanaa address leh sidee mataqaanaa ugu xiri karaa Google AdSense-gayga address-kayga si 4 number ee verification-ka ama 4 number ee mataqaanaa aqoonsiga si loogu soo diro meeshaas aad ujeed waxaa ku qoran payments marka payments aad gashid kadib waxaa ku soo bixi doono qaybtan ayaa ku soo bixi doonto markay ku soo baxdo kadib waxaad tagaysaa meeshaan ku qorantaa setting kadibna manage setting meeshaan waxaa imaanaysaa meeshaan ay ku qoran tahay name and address muhiimadda ugu badan oo qofka mataqaanaa muhiimadda oo ugu weyn oo mataqaanaa meeshaan aan ka leenahay waxay tahay okay si aad addresska ugu xirtay marka waxaan imaanaynaa meeshaan ay ku qoran tahay payment kadibna kor ayaan u qaadaynaa kadib meeshaan ay ku qoran tahay settings kadib manage and setting kadibna kor ayaan usii jiidayaa oo ah ani muhiimadeena ma ahan mataqaanaa qaybta ugu koreysa mataqaanaa oo ID-gayga iyo waxyaabahaas mataqaanaa waaye oo muhiim ah in aad aragtiin laakiin meesha ugu muhiimsan oo la rabo in aad aragtiin oo aad buuxisiin waxa waaye meeshaan ay ku qoran tahay maxaa la sheegay name and address ay ku qoran tahay address-kan waa address hore ah mataqaanaa aan degnaan jiray hadda laakiin waa aan kasoo guuray ma degni okay marka waxaan leeyahay edit ayaan leeyahay edit markaa dhahday kadib meeshaan waxaad gelinaysaa magacaaga oo saddexan okay ama magacaaga oo caadiga ah oo guriga addresska aad degan tahay kugu qoran ayaad gelinaysaa marka waxaan gelinayaa Abdi Rahman Hassan okay meeshaan wadadii aad degnaan jiro waaye ama mataqaanaa wadada magaceeda waaye oo address line 1 ayaa kugu qoran oo ah hadda waa kasoo guuray oo mataqaanaa ishig midda aan deganahay ayaan gelinayaa ama midii horeeta aan deganaa jiray marka waxaan deganaa jiray Khrutsli Straße 4 okay
Straße 4. Okay. Intaas waaye line-ka mataqaanaa ishig address line 1. Okay. meeshaan waxaa gelinaysaa marka zip code-ka oo xaafadaas aan kasoo guurayo waxay ahayd 6210. magaaladan magaceedu waxaa la dhihi jiray Sursey. Okay. address 2-ga waxaad gelin kartaa marka intaan wada socoto kana horumarinaysaa oo ah copy ayaan soo leeyahay, right click copy intaan imaanayaa, kadib waxaan leeyahay right click paste ama control V. Okay. kadibna waxaan leeyahay comma ayaan leeyahay, space ayaan baxayaa 6210 magaalada magaceeda marka Sursey ayadoo wada socoto ayadoo kala go'san oo ah address mataqaanaa 1-ka waxaa gelin kartaa hadda u baahan tahay kanoo buux, laakiin waxaa isku daydaa mar walbo in ay mataqaanaa saan kugu qoran tahay zip code-ka in aad og tahay gobolka aad degan tahay, xaafadda aad kasii degan tahay, numberka ay leedahay. xaafadda aad degan tahay gobolka ma ahan, waa xaafadda aad kasii degan tahay. gobolka magacuu leeyahay, gobolkaas xaafad ayaa ka degan tahay, xaafaddaas magac ayuu leedahay, magacna way leedahay, number u goonina way leedahay. marka numberka u gooni ah waatana waxaa waa 6210 xaafadana waxaa la dhihi jiray Sursey. Okay. marka numberkaagana waa gelinaysaa marka numberkaaga oo mataqaan dhameystiran eber 6 ka bilaabanayo ama eber 7 ka bilaabanayo. muhiimadda ma ahan inaa asoo dhameystiran awada gelisid oo macnaha asoo dhameystiran automatic ay u galaya sababtoo ah inta soo jeedin wadanka aad jooga calankiisa ayaa ka muuqda. marka waxaad ka bilaabaysaa localka sida isku wacdiin oo kaleeta ayaad ka bilaabaysaa oo ah eber 76 aan ka bilaabanaa ama eber 78 eber 79 ayaan isku mataqaan isku wacnaa. marka eber 78 camal aad ku galaysaa, kadibna maxaa la ishig lambarka dhameystiraysaa asaa soo dhameystiraa marka oo 41 kusoo daraay inta ka dhiman ama mataqaan country code-ka asaa kusoo daraay. Okay. marka markii saas ay noqoto kadib waxaa leedahay save ayaad leedahay. marka save markaa dhahdid waxaad sugaysaa marka in lagugu soo diro wax allaale wixii oo ka imaado YouTube-ka waxaa kugu soo dhici doonaa gurigaaga ama boostiga ayuu kugu soo dhici doonaa. Okay. markii oo is active gareynaysid oo lacagta ay ku bilaabato meeshan hadda everywhere soo jeedin dad fara badan waxay aaminsan yihiin marka lacagta qaabka lagu qaato in mataqaanaa banki card lagu xirto, laakiin sheekada way ka weyn tahay. meeshan soo jeedin minimumka qofku wuxuu qaadan karaa ama Google-ka wuxuu bixin karaa ama waxaad mataqaanaa ishii taara shootkaaga ama lacagta markay gaarto $100 markay gaarto ayaad kala bixi kartaa Google-ka. intaysan 100 aysan gaarin ma kala bixi kartid. 100 markay isku dhamaato soo jeedin meeshan waxa ku qoran 100 markay gaarto ayaad la bixi kartaa oo meeshan soo jeedid oo iyadana everywhere hadda markay 100 ay gaarto ayaad kala bixi kartaa. marka meeshan how you get paid macnaha sidee u heli kartaa, waxaad u heli kartaa in aad markaas aad dhahdid withdraw inaad ku samaysid oo mataqaanaa bangi kaarkaaga aad gelisid aad kula baxdid iyo inaad Western Union-ka mataqaanaa aad ku qaadatid, labadaba adiga ayaa mataqaanaa aad samayn kartid. marka meeshan waxaad ku ogaan kartaa transaction-kaaga bishii oo lasoo dhaafay, bishii kasii horeysay, bishaan sanadkan maxaa sameysay aduu ku shaqeynaa janaalkaaga, saas ayaad ku ogaan kartaa. marka barnaamijyadan oo sii faahfaahsan oo mataqaanaa qaabka oo bil kasta la sameeyo qaab waxyaaba kaletana hal video kaleta ayaan ka samayn doonaa, laakiin muhiimadda ugu weyneed oo aan lahayn maanta waxay ahayd in aad mataqaanaa Google AdSense aad iska diiwaan gelisid, sidii la iskaga diiwaan geliya aad aragtid iyo address-ka si loogu xiro. address-ka waxaan ku dhahnay home-ka ayaan ku laabanayaa. markuu page-kan uu ku soo baxo kadib waxaad tagaysaa meeshan ay ku qoran tahay payment, kadibna waxaad sii tagaysaa meeshan oo setting ay ku qoran tahay manage setting-ka aad kusii dhufanaysaa, kadibna kor ayaad u qaadaysaa, kadibna waxaad imaanaysaa meeshan ay ku qoran tahay name and address, kadibna meeshan qalinka ay ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa, kadibna magacaaga ayaa meesha ku qoraysaa, kadibna address-kaaga koowaad ayaa gelinaysaa asoo mataqaanaa oo meeshan 4 ayaa ka maqan oo macnaha wadada numberkeeda, kadibna meeshan waxaa sii gelinaysaa iyadoo dhameystiran, intana mataqaanaa zip code-ka ayaa gelinaysaa, xaafadda ayaad ka diganta ayaad gelinaysaa, kadibna waxaad leedahay save ayaad leedahay. hadda aniga wax save aan dhahayo ma lahan sababtoo ah janaalkan waxaa u isticmaalaa janaal caadi ahaan ayaa u isticmaalaa. hadda waxaan sameeyey janaal kale oo cusub oo ah Cabey Xasan ayaa sameeyey, kaasina aan rabay in aan kusoo gudbiyo reaction vlogs iyo waxyaabaha la halmaalo. laakiin Cabey TV waxaan u furay ama kusoo gudbin doonaa barnaamijyada oo mataqaanaa caawinaata ama teknolojiyada in ay ka faa'iideystaan walaalahayga Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. marka waxaan idin leeyahay
tan iyo kulanto dambe waxay waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sing that shit.